السلام عليكم. waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo haddii gabadha ugxaanteeda diyaarka tahay sidee lagu ogaan karaa. waxaan rabaa inaan uur qaado, waxaan rabaa inaan ogaado ugxaanteeda inay diyaar tahay iyo in kale. haddaba maxaa iga caawinaya ama sidee ku ogaan karaa in ugxaanteeda ay diyaar tahay. fiidiyogan wuxuu quseeyaa keliya dumarka ayuu quseeyaa. haddaba maanta waxaan kula wadaagi doonaa 4 shay oo haddii aad fahantid aad ogaan doontid xilliga saxda ee ugxaantaada ay diyaarsan tahay. qodobkood wuxuu yahay haddii horta marka koowaad caadadaada ay kuu saxan tahay bil kasta oo la yidhaahdo regular menstrual cycle. haddii caadadaada bil kasta ay kuu saxan tahay waxaa ogaataa jaaniska aa uur ku qaadi kartid bil kasto aad ay u sareeyaa. sidoo kale waxaa jira wax la yidhaahdo ovulation signs oo ah calaamado gabadha ay isku aragto haddii ugxaanteeda ay diyaar tahay iyo in kale. waxaa ka mid ah marka waxaa la yidhaahdaa qodobkood wuxuu yahay wax la yidhahdo clear screening mucosa. gabadha waxay isku arki doontaa waxyaabo hoos ka imaanaya oo jiidjiidmaya ay isku arki doontaa oo clear ah ay isku arki doontaa. haddii ay isku aragto waxay calaamad u tahay in ugxaanteeda ay diyaar yihiin. qodobka koowaad waay. kan labaad muxuu yahay gabadha waxay isku arki doontaa lower abdominal pain. haddii qaybta hoose xanuun aad ka dareemaysid caloosha qaybteeda hoose haddii aad xanuun aad ugu dareemaysid ayadana waxay calaamad u tahay aa la yidhahdaa in ugxaantaada ay diyaarsan tahay ay calaamad u tahay. sidoo kale waxaa la yidhahdaa haddii uu bato basal bodiga ama basal temperatureka jirkaaga hadduu bato tusaale ahaan oo kale awilka hore jirkaaga nadiif ahaa jirtay maalmaha caadiga ah maalmaha kale waxaad ku aragtaa jirka kuleel inaad dareemaysid kuleel zaa'id inaad dareemaysid isbedel jirkaaga inaad dareemaysid haddaa isku aragtid waxay ayadana calaamad u tahay in ugxaantaada ay diyaarsan tahay. haddaba marka 4tan qodob waxay calaamad u tahay in ugxaantaada ay diyaarsan tahay haddaa isku aragtid.